alxamdulilah maanta oo jimco ahayd waxaan filayaa taarikhdu in ay ku aadan tahay 15 bisha May 2020 waa maalin aan isleeyahay taariikh bay ku leedahay Soomaalida markaan dib u noqono 77 sano ka hor 1943 maanta oo kale maalintii dhalinyaradii SYL ay ku dhawaaqeen aasaaskooda ay bilaabeen halgankaas aan filayo qof kastoo Soomaali inuu garanayo dhalinyaradaasi macnaha ay ku fadhiyeen iyo waxa ay xilligaas bilaabeen waxa uu ahaa iyadoo aan garanayno waxyaalaha maanta la haysto ee aaladda ama fududeynaysa ama adduunku sidii isugu xidhay oo isugu xidhnayn haddana dhalinyaradaas iyadoo xilligaas waddanka uu gumaysi ku jiray halganka ay bilaabeen oo ay ka midho dhaliyeen ilaa iyo ay gaadho 1960kii Soomaaliya loo ogolaado inay helaan xorriyaddoodii gaar ahaan labadii gobol ee markaas Talyaaniga iyo Ingiriisku ay kala gumaysan jireen waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan u sheego inay gartaan mar walba doorka ay leeyihiin sababtoo dhalinyaradu waa xoogga shacabku uu leeyahay dhalinyaradu waa dadka ka turjuma dareenka dadka dhalinyaradu waa dadka waa maskaxda hagitaanka waddanka iskale markaas sababtoo dhalinyaro ayaa mujtamac iyo ummad badbaadisa qofka odaygaa ama dadka markay duqoobaan ama ay sii yaryar yihiin waxaa laga yaabaa inay sida la rabo inay wax u qaban karayn taa waxaan rabaa inaan marka hore u hambaliyeeyo oo u tacsiyeeyo iyagoo hadda aan leeyahay ree aakhiraad bay yihiin dhalinyaradii SYL ee xilligaas usoo halgantay ee qalinka ku halgantay sidii Soomaaliya xorriyaddeeda ku qaadan lahayd inaan haddana baraarujiyo oon u sheego dhalinyarada maanta joogtaay inagoo garanayna xaaladaan soo maray iyo dhibaatadana haysata iyo mushkiladda waddanku uu soo maray iyo suu ahaa inay maanta dadka iyagu u noqdaan dadkii wacyigelin lahaa ee baraarujin lahaa ee dariiqa saxda u sheegi lahaa ee kala shaqeyn lahaa ee xusi lahaa waddankan maanta sida loo soo maray ee dhiigga kusoo daatay inay dhalinyaro badani naftooda usoo hortay dowladnimadooda iyo qarannimada siduu ku heli lahaa maantana loo baahan yahay sii jiritaanka iyo adkeynteeda inaan u baahannahay in dhalinyaradu maanta joogta ay ka qaadato doorka ay leedahay waan hambaliyeynayaa maalinta 15 May 77 sano ka bacdi waxaana leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa hadda joogana in dhalinyaradaasi caqligii saliimka ay ku fakerayeen ay ku fakeraan